السلام عليكم. waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo barnaamij maalmahan la isku dhinacwaday barnaamijkaas oo ahaa fanaaniinta heesahooda waa qaldan yihiin iyo ma qaldana fanaaniinta dambe. marka ugu horeysa horta waxaa jira adduunka wax la yiraahdo gap age la lahaa jiro. qofka haddii uu gap age-kaas oo flexible ku ahayn oo labada dhinac isku xiri karin waxa waaye ma ka hadli karo waxa markaan jiro. sidaas ay tahay maxaa la yiraahdaa haddii uusan qofkan la haysanin tusaale ahaan hadda waa 2014 ninkan odaga ee barnaamijka Sharaac Soomaaliga wadane wuxuu joogaa 1914 joogaa. marka farqi dheer u dhaxeeyo distance-gaas meesha ku jiro maxaa la yiraahdaa waqtigaas dheer oo meesha ku jiro waxa ku kalifaysaa inuusan fahmi karin waxaan meesha ku jiro hadda iyo dhalinyarada si wax u duubeyso ama si wax u sameynayaan. sidaas ay tahay haddana af Soomaaliga laftirkiisa waa badan yahay tusaale ahaan wuxuu yiri hal maldaho heesaha haddii uu leeyahay heesaha hal maldaho oo wixii la sheegay hal la qariyo haddana heestii guuleed ma joogaa. abanku wuxuu leeyahay guud halaalay iyo gob weyn oo marka meeshaas markuu gabadhii magaceeda iyo jirkeeda u kala saaray geed iyo maxaa la yiraahdaa ayada u kala saaro wuxuu sameynayaa maxaa la yiraahdaa gabadhii uu amaanay intuu jirkeeda si qaawan u amaan lahaa wuxuu isku dayay inuu wax qariyo markuu geedkaas sidoo u amaanay heesta wuxuu ku soo meelaha ugu dambeysay waxa ku jirto inuu leeyahay gadafkii muuqa geed iiga dhigay wuxuu waa gabar. marka meeshaas waxa kaaga cadeynaysaa in wuxuu maanta inuu ka sheekeynay ama amaanay ay gabar tahay. sidaas ay tahay ninkan odaga ah isku sheegay inuu yahay macnaha nin isa soo diray asiga oo inuu wax toosiyo rabo ma fahmin uu leeyahay geedku ka sheekeynay maxay tahay muxuu ka hadlayaa waxaas. marka Soomaaliga haddii asaas ka joogtid kii horena fahmi laadaha kana aad leedahay waa qaldan yahay xagee ku raacna. marka ugu horeyso afka horta waa la wada leeyahay qof go'no wala malaha af walbana generationkiisa iska leh. tusaalahan af Soomaaliga hadda lagu hadlo wax walba isbedelaan af Soomaaliga hadda lagu hadlo waxa waaye waa kiina waqtigiina oo ku soo qaadateen anaga iska leh anaga idinka og waxa meesha ka jiro dhalinyarada burbur badan dhacay qaxa dhacay dhibaato dhacday dad dal iyo af intaba waa dhumeen. waxaa dhacday waqti maxaa la yiraahdaa jirtay in la yiraahdo abbaanada heeso ma soo sameeyaan heesi hore lagu celceliyay abwaana la leeyahay hadda abwaana soo kaceen oo la isku dayeen afka la soo nooleeyo cid kama yeelayna waa duugayna waxa way qaldan yihiin oo wixii hore ka fiicnaa wixii hore waqtigooda ku fiican yahay waxaan waqtigooda ku fiican yihiin. saasay taa waxa jeclaan lahaa horta tusaale ahaan 3 sano soo qaato oo la yiraahdo dadka yiraahdaan waa qaldan yihiin. waa heesta uu qaaday Liban Jigjigo oo adigoo 3 lagu qaban sinna kugu dhaafi kareen heesta hadaan tumeenin iyo heesta ku hay saddexdaas oo soo qaato saddexdaas inta badan la yiraahdaa waa qaldan yihiin heesahan oo saan waay. waxa jira horta wax runa iyo wax fikir jiro marka run laga hadlayo wax lama qarayo wax walba say taa loo sheegaa. tusaalahan aan ku bilaabo heesta oo hadaadan maxal lahaa adoo 3 lagu qaban sinna kugu dhaafi kareen heestaas waxay leedahay adigoo 3 lagu qaban sinna kugu dhaafi kareen. sababta maxaa keena horta waxa laga hadla dhaqan iyo laga hadlay dhaqanka ma ahan in maxaa la yiraahdaa yani oday oo ka soo qaba ninkan odaga oo leh maxaa la yiraahdaa waxaan waa qaldan yihiin leh da'diisa oo kala ah oo xoogaa soo arursaday wuxuu imaanay wiil iyo gabar 2 sano 3 sano isla socday markaasuu gabadhii cidooda intuu xirsiyo ama dhaqaalahaas ku raacaan ama qabiilha ku raacaan wuxuu leeyahay gabadhan hal isiyo 60 iyo xoogaa inuu jira laga yaabaa gabadhan 20 ay jirtaa laga yaabaa waqti badan u dhaxeeyo isma xal ah isku fahmi karaan maskaxna isku fahmi karaan oo waa kala maskax weeyihiin da'na isku fahmi karaan oo waa kala da' weeyihiin waqtina isku fahmi karaan oo waqtiga u kala duwan. okay maxaa dhacaysa gabadhii odayga waxay ka rabtay in macnaheedu ay maxal lahaa ay ka helwayso si nolosha iyada ka rabtay nolosha kulli qof bas uu yaqaan laakiin aniga saan u yiri laakiin mas'uul ah nolosha ay ka rabtay inay ka fahmayso hadhowtay ku soo laabato wiilka ay tiraa wiilyo wallahi waa lagu qalday ducaa qaadaa la yiri habar qaadaa la yiri hadii kale macnaheedu ninka raac waxay rabtaa aad horta adiga markaa nin odaya tahay 60 iyo xoogaa jirtid ama 50 iyo xoogaa jirtid naags 40 ku dhawaa heli kartaa maxaa gabar yar oo maxaa leedahay qorta tabartaadana ahayn aqlan aad isku fahmeen waxna aad isku fahmeen adigina aad rabin inaad maxaa lahaa wanaajisata qorta ku gelinayo. ana waxa aaminsanahay dhaqan marka laga hadlayo in odayaasha hore ay dhaqanka ku dheeleen sababtoo ah gabar Soomaali ah ma jirto nin diyadeeda bixin karo
haddii lagu matalo dunida oo miisaan la saaro maradeeda ma gasho waxa adduunyada yaalo oo dhan nafteeda iska dhaafay maradeeda maxaa la yidhaahdaa ka qaalisan saa anay aaminsanahay marka nin fiicana gabadhi la siiyey iyo ma jirto naag walba waxaa u fiican ninka ayada rabto ninka ayada ay rabtaa u fiican ninkan suud qaali oo wataa ninkan fanaanad raqiis oo wataa maaha macnaheedu marka haddii aad maxaa la yidhaahdaa haddii aad xoolo sheegato waa lagu xaniin sheeganaya saddex iyo xoogaa adoo lagu qabaa sina lagugu dhaafeen su-aasha waa intaas midda kale u imaa maxaa la yidhahdaa oo ku hay haysta ku hay waxay ka hadlaysaa waxa la yidhahdo romantic wiilka waxaan ugula eedeeyaa haddii aan dhalinyarada Soomaalida ama wiilasha Soomaalida in la yiraahdo wiilasha Soomaalida ma aha romantic ma ahan gabdhihii ma fahmayaan waa run wax jira waay badankeen waxaan wadanaa dhaqanka hore odayaashii gabadhaada oo Ilaahay ku baneeyay oo xaaskaaga ah oo guriga ku joogto wax badan ay xaq ugu leedahay la iska indhatiri haddii ay gabadha tiri ku hay meesha aan la rabo haddii ay tiri macnaheedu ma ahan inay sidii loo fahmay ay tahay marka ku hay waxa waaye si romantic gabadhii wiilka inuu ka hor seexdo ma inuu ayada seexiyo waay marka haddii uu gabadha seexiyo oo laabteeda gacanta gishto saan soo qabto subaxdii ay soo kacdo ayadoo laabtiisa ku jirta ay soo kacdo intaas ba nolol waay gabar Soomaali maxay doonaysaa horta wax yar ay doonaysaa wax badan ma doonayso intaasna waa loo awoodaa haddana maxaa la yiraahdaa hadda marka hadii la yiri wixii la sheegaba waa qalad dhalinyarada hadii aan la sheegin waxa ay qaladkooda u yahay hadii aan la sheegin maxaa la yiraahdaa si wax lagu hagaajinaa horta teedi kale raggan abwaanada hadda soo kacay wax sameeynayo dal dhan oo burburay waxay u yihiin afkiisii ay isku dayeen inay soo nooleysiyaan uma qalmaan in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa waxba qaladana wixii qaldan waa la yaqaanaa suugaanta qaabka u qaldanta waa la yaqaanaa laakiin generation kuma qaldanto wax walba waqti leeyihiin waqtigooda inay joogaan marka maxaa la yiraahdaa mid kale haddii xataa u qaateen ku hay meesha aan la rabo haday tahay waaba iyadaba ka bariibo haduusan ku haynin meesha oo la rabo guriga hooyadeed maxaa uga soo waday waa su'aal meesha taalaydana ka soo gudub waxa kale oo jirto heystan haddaadan tumeyn gabadha heysta qaaday hore u sheegtay waxay macna ahaan ku salaysan tahay sida laga dhigay laftarkeeda kan waxa jirtay hadda ka hor sheekay ahayd nin aan weligiisna guursan ee gabar yar oo horjeeda ayadana aan hore loo guursanaa is guursaday ninkii dhalinyaro asiga waxba dhaamin oo la tasho wuxuu yiri meel wax ka bilaabo ma aqaan maxaan sameeynaa markuu yiri waxay leedahay waxa lagu yiri nin waxa sameeysaa waxa ayada sameeysa kaliya sameey markii arooska la soo gulbiyo guriga la keenay waxa dhacday xoogaa gabadhii wiilka kala aamusan yihiin waa la kala xishoonaa gabadha way istaagtay albaabkii xirtay asna uu ka dib istaagay albaabka u furay way soo baxday sariirta fariistay way qosasho ka dib imaada asna uu fariistay way qosla maxaa haysaa xidhaada marka niyo waxba ma haya adig maxaa haysaa hooda markaas ay ku tiri waxba isma dhaaneen niyo nin labadeenaba naga shaqeeya baxno doon aan u soo noqdo markaysta maxaa la yiraahdaa haddaan tumeyn heestaas waxay leedahay haddaan tumeyn waa run niyo haddaan tumeynin maxaa horta u soo wadatay gabadhan jaada la cunayaa subaxda rootis maraysaa la cunayaa waa la qaylayaa habeenkii dhan waa la maqan yahay naaga guri ku joogto oo maxaa la yiraahdaa waqtigeeda la soo lugoolay ninaa ku qabay kaale intii ma loo yiri barafaa jiro Yurubta markaan ka hadlo qabowaa dadka ku dhacay meesha la jiifaa waa la sag jiifaa gabadhina meesha ku jiiftaa haddaan tumeynin marka muhiimadu waxa waaye haddaan tumeynin bax labadiina mid tumakeen marka waxa hadalka hadii la gidiyo la qaldo oo inta ay ka xuyeen xagee ka mar walba laga fiiriyo muhiimada ay xambaarsan tahay hadaan laga hadlin oo wixii la kala qaado ereere loo kala qaado way fool xumaanayaan taasna sababta keenaysa waxay tahay ninkan odaga ah israaca afka Soomaaliga soo daayay waxa waaye wuxuu joogaa 1914 hadda waxa waaye 2014 marka isma fahmi karaan waxaan meesha ka jira ma fahmi karo flexible ma aha nin asigana ma ahan maxaa la yiraahdaa oo saas ilbaxnimadaas la hooyo fahmi karo wixii qaldan intuu sheego wixii saxan sheegi karo ma aha wixii asiga la qaldan ama wuxuu fahmayo wuxuu yiraahdaa waa qaldan yihiin afka ana isku diro yiri haddaad isku dirtay afka anaga iskale odayaasha waqtigiina waa soo qaadateen waxa ku ciyaari kartiin waa ku soo ciyaarteen keenna way anaga iskale waqtigeedna way hadda dhalinyaranahay noo daay anaga naqandad ka cilmi badan kaaga aqoon badan waxaana jiraan haddaan toosinaysan anaga toosinayno idinka nooma toosinaysan tii horena naguma jiminaysan tii hore oo weligeed in la isdhacay in la isdilay in maxaa la yiraahdaa qabiil la isku garbiye ah adinka aan ka baranay ilaa ay haddana waxa saawdiin mana idinka yeelayno sababtoo ah maxaa la yiraahdaa waxaan laga hadlayo horta hadaa fahmi karin waxa waaye waxa la yiri anaga haddaan raax marnaay
reewaqooyiga isku mid mane reewaqooyiga waxaa leeyahay ninkaa soo qaldan loo jeedo waar nin oo libaax baa tahay oo nin fiican baa tahay oo sidaa ku wada leeyahay laakiin annaga reer xamar aan nahay waxaa la leeyahay hoy heer baadiyaa taas maxaa jira yaaqay adoo ilka guduudana ma iska soo fariisiin ma bax soo rumaysaa lagu leeyahay oo la isku cadeynaya waray dhamaantiis adeer waxaan kuu sheegaynaa afkan anaga leh anaga haddaan dhalinyarada iskale adiga waqtigaaga waa soo qaadatay hadda kuma jirtid cimri adigoo maxaa la yidhaahdaa cimrigaas ah kuma jirtid cimri aad maanta adigoo munkar ka sheekeynayo aad subxaanaka yaa cadimu tirahay waxaa u baahan tahay meesha lagu xareeyo waa yeelka maadaama dhaqan aan leenahay muslimna aan nahay kuma lihin bax meesha waayeelka lagu xareeyo xanaanada oo waayeelka ta kuma lihin waxaan ku leenahay adeer bax masaajidka isaga dhawaaw waxaan waxba kama ogid reer baadiyaha ka tahay wayna ku dhibaysaa magaaladaaba dhib kugu hayso haddii kale baadiyahaga isaga laabo waxaan ma arkaysid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu